banaadir ee gudoomiye ku-xigeenada maamulka guddiga abaabulka wacyigelinta heer qaran agaasimayaasha gudoomiyaasha degmooyinka gaar ahaan gudoomiyaha degmada Daynile gudoomiye Jacfar iyo dhammaan bulshaweynta Soomaaliyeed ee degmada Daynile iyo bahda saxaafadda salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa caawa farxad weyn noo ah inaan halkan xariga ka jarno taaladan quruxda badan ee maamulka degmada Daynile iyo shacabkiisa ayagoo iskaashanaya ay dhiseen una dhiseen iyadoo qayb ka ah soo celinta bilicda caasimadda Daynilena aan maanta fursad u helnay maamulkii oo dhan dhammaan degmooyinkii aan halkan shirkeennii degmooyinka ku qabsannay taasoo runtii ujeeddadu ahayd in gudoomiye Jacfar iyo howlaha muhiimka oo halkan ka qabtay aan indhaheenna ku soo aragno waxaan soo aragnay dhammaan waddooyin tiro badan oo la falay la hagaajiyey jaay laga dhigay waxaan aragnay magaaladii Daynile oo dib u soo shidantay waxaan aragnay nalalka isxilqaan lagu sameeyey oo shacabka iyo maamulku iskaashaday waxaa halkan nooga muuqata in shacabku ay runtii u diyaar garoobeen inay aayahooda ka tashadaan taasoo ah ujeeddada maamulka gobolka ah in shacabka la gaarsiiyo inay hal cod iyo hal qof la gaarsiiyo oo ay aayahooda ka tashadaan maanta caawa waxaan u mahad celinaynaa gudoomiye Jacfar oo runtii tallaabo lagu dayan kara muujiyey sidii barisamaadkii ahaan jirtay magaalada Muqdishona oo haweenkii dhalinyaradii shacabkii tan iyo galabta ilaa iyo hadda u taagan yihiin itusaan inay dawladda jecel yihiin inay jecel yihiin nidaamka inay jecel yihiin kala dambeynta inay amniga ayaga gacantooda ku soo ceshanayaan runtii waa tallaabo aad loo bogaadiyo u mudan annagana waxaa naga go'an maamul gobolka banaadir iyo dowladda federaalkaba sidii caasimaddan ay ula tartami lahayd caasimadaha adduunka tallaabadeeda iyo ifaalaheedina waa kuwa aan maanta ku taagannahay waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo dhalinyarada gabdho iyo wiilal isugu jira oo tan iyo galabta howlahan oo dhan abaabulka waday ee deegaan bile oo runtii muujiyey waxa ay qaban karaan waxaan ka codsanaynaa deegaan bile hawsha muhiimka ay halkan ka hayaan inay degmooyinka kalena gaarsiiyaan caasimadoo dhanna ay gaarto hawshaan sidoo kale baryahan waxaa socday abaabul guddiga wacyigelintoona la joogaan waxaan uga mahad celinaynaa barnaamijka darisaynta iyo howlaha bulshada iyo hay-adaha amnigu isaga kaashanayaan waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo hay-adaha amniga gaar ahaan booliiska Soomaaliyeed oo maanta oo dhan heegan noo ahaa nala joogay isla markaana noo sugayay amniga ayaga la'aantoodna aysan noo suurto gasheen ugu dambeyntii bulsho waa tan isku tashata bulsho waa tan istaageerta bulsho waa tan tusisa Soomaaliya inay Soomaali tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Maxamed Cabdullaahi Maxamedna sida hagar la'aanta ee shacabka 7 Febraayo 8 Febraayo u doorteen 2017kiina waa mid muuqata weli taagan 2 sano kadibna ay arrintaas sii kordhayso annaga waxaan rabnaa dowladda federaalka iyo go'aanadeeda iyo mas'uuliyiinteedaba har iyo habeen in la taageero loo duceeyo shacabka Daynilena mar kale waa idin mahad celinaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu